Nice. Waan garan. soo dhawaada waa barnaamijka hagaajinta maqalka iyo muuqaalka. maanta barnaamijka waxaan kusoo qaadanaynaa marmar waxaa jirta inaad soo qaadatid sawir horsanta ku dheer ama sawir balaaran oo meel qurux badan aad tagtay, yaad sawir xasuusa kasoo qaadatay, ama ha noqoto dhismo hore ama ha noqoto buur weyn oo caana ama family photo weyn oo markaa saa u dheer. Calaa kulli xaal, marka sawirkaas Instagram geli markaas tiraahid laba mid buu noqonaya inaad jirtid oo dadka qaarkood ay kugu xanaaqaan oo yiraahdaan anna maxaa iga jirta meeshaas oo huuna maxaa dhacay oo waa kan iyo apologize iyo wax bixisid, iyo in uu noqdo sawir yar oo quality yar oo markaa si fiican aan loo arkaynin, aan buuxinaynin meesha loogu talagalay Instagramka ama size-ka loogu talagalay Instagramka. haddaba haddaad rabtid inaad buuxisid, waxaa jirta marka trick ama dad baa waxay keeneen hab marka sawirkii loo gelin karo shaashadana uu si fiican u buuxinayo, laakiin noqonaysa inaad jiidid laba sawir isku dhegan oo kale ayaa laga dhigayaa sawirka weynaa. marka sidii loo sameynaya ayaan maanta isla baranaynaa. aniga naftirkii maalin dhow baan arkay, kadibna apply waxyaabaha aan soo geliyay Instagram aan kusoo darsaday. marka aan isla fiirino, marka waxaad u baahan tahay marka dhowr talaabo inaad qaadid si aad mataqaanaa aad u heshid effectkaas ama aad u heshid inaad u samaysid qaabkaas aan ku sheegay hadda. marka hore waa inaad haysatid software marka waxa aan sameynaya aad ku samayn kartid, sidii inaad sawirka crop ku samayn kartid ama aad sawirka dhexda ka jiri kartid. softwaradaas marka way badan yihiin. aniga waxaan isticmaalayaa hadda waxay noqon doonaan Photoshop oo aan ku jari doono. Lightroom waan iska isticmaalaya, waxaan isticmaali doonaa isagana si aan mataqaanaa u qurxiyo sawirkii colorkiisi iyo wixiisi. waxa weeyaan hadalkan igu daalin, Lightroom-kan fiirino bal sidii aan u qurxiyay sawirka. Juste une faille dans mon cœur attend pour la peinture au mur et les bambins cul sida arkay Lightroom-ka waa kana sawirka markaan soo geliyay. sawirku waxaa arkaysaa in uu marka hore soo ekaa, kadibna saasaan ka dhigay. kadibna waxa weeyaan waxaan sameynayaa in aan sawirkan crop ka dhigo weyn yahay hadda, in aan ka dhigo markaa 16 lagu dhuftay 10 ama 16 lagu dhuftay 10 oo ah size marka laba u qaybsanayo hadhuuti laba sawir oo noqonaya midna 8 lagu dhuftay 5 kan kalena 8 lagu dhuftay 5 oo ah sawirada ay jeceshahay ama Instagramka size-kooda ah. okay, marka intaan sameeyo kadibna waxaan oranayaa Photoshop sawirkan taabanaya, waxaan leeyahay Photoshop-ka ku edit garee inta hartay. waqti bay yara qaadanaysaa inta Photoshop-ka uu tagayo, laakiin markuu Photoshop-ka imaado waxaa sameynaysaa range tool-ka soo qabsanaysaa ama kan wax lagu kala jaro ayaad qabsanaysaa. marka aad qabsatid iska ayaa kaga soo qabanaysaa oo soo jiidaysaa markaa xariijintaas ilaa iyo dhexda ayaa keenaysaa. qasab ma aha in aad dhexda markiiba heshid, laakiin marka hadda sii deysid waad heli doontaa dhexda sida aad aragtaanba hadda heshid. waa ka dhexda anigu ii helay markiiba. waxaa sameynaysaa marka waxaa leedahay export save as web. marka ka iloobin export ka tiraahid waa inaad tiraahid save as web. haddaba waxay ku keenaysaa daaqadan kale ayadana waxaan ka sameynaynaa meesha minuska ayaa taabanaysaa si aad u aragtid labada sawirba. kadibna waxaa sameynaysaa in aad hayga meesha aad ku qoran tahay height-ka aad yareysid oo ka dhigtid 1350
qualitygiisa ama horta jpeg waa inaad ku save garaysid naftirkeeda. Qualitygana waa inaad iska fiirisid inay boqolkiiba boqol tahay. Hadday ka yar tahay boqolkiiba waxaa weeye waxaa ka xumaanaya sawirka. Marka qualityga waa inaad ka dhigtid 100. kadib ka kale ayaa eegaysaa, kan kalena waa sidoo kale. kadibna waxaa ku save garaynaysaa meeshii aad doonaysa inaad ku save garaysatid. Stockholm ayaan ku save garaynaya aniga 2. kadibna marka waxaa u dirsanaysaa taleefankaaga. qalabka marka wax isku diraysid naftigiisa quality way ka xumaan kartaa. marka waxaa sameynaysaa, aniga waxa maadaama aan iPhone haysto, computerka isticmaalaya inuu yahay Mac, waxaa ku diri karaa sawiradeeda iDrop oo marka ii sahlaysa in aysan quality iga lumin. haddaba waxaan gelaynaa hadda qaybtii waxaan tegaynaa mobileka. qaybtii mobileka markaad imaadid waxaa sameynaysid waxaa weeyaan labada sawirba waa aragtaa. waxaa gelaysaa meesha la yiraahdo Instagram-ka tegaysaa. Instagram-ka markaad tagtidna waxaa sameynaysaa sawirka qaybkan midna waa kow, midna ugu horeeya, midna ugu xiga. ka labaad ayaa wuxuu noqonayaa ka koowaad. way isdaba marsan yihiin. inta aadan sameyn laakiin waa inaad horta bahasha yar yara isku keenaysa sawirka oo fit dhehaysa oo inaad taabatid. kadibna waa inaad taabatid labada sawir iskor saaran si aad u dooratid sawirkaaga labaad. kadibna waxaa oranaysaa next. saad aragtidba haddaba wuu kuu soo galay sawirkaagii. magacaaga ku qornaysaa, taagii wixii aad sameynayso waa sameyn kartaa. marka waxaa aragtaa sawirkii inuu si qurux badan haddaba kugu soo galay oo aad marba dhinac u wareejin kartid. barnaamijka haddaba maanta intaas ayaanu ku soo koobaynaa. wixii su-aalo ah waa xaggiina. sidaa iyo nabadgelyo.